magaalada Caynaba ee xarunta gobolka Saraar maanta waxa ka qabsoon banaanbax aad u ballaaran kaas oo dhigayaan shacabka ku dhaqan gobolka Saraar. Banaanbaxan ayaa shacabka gobolka Saraar waxay si miyiga miisaan bal ugu taageerayeen khudbadii taariikhiga ahayd ee madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka jeediyay labada gole qaran. Sidoo kale dadweynaha gobolka Saraar waxay si ballaaran soo dhaweeyeen go'aankii taariikhiga ah ee madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku diiday in ciidda Soomaaliland lacagaha soo dhigo madaxweynaha dalkeena dariska nahay ee Soomaaliya. Banaanbaxan ayaa waxa horkacayay maamulka gobolka Saraar ka degmada Caynaba waxaana xubnihii kala duwan halkaasi hadalada kala duwan ka soo jeediyay kamid ahaa barsaabka gobolka Saraar Axmed Maxamed Xaashi ku-xigeenkiisa Nuur Qaasim Qadax maayirka degmada Caynaba Axmed Qani Cabdi Xaaji Yuusuf xildhibaanada golaha deegaanka Caynaba isuduwayaasha waxgaradka iyo cuqaasha waxaana dhamaantoodba hoosta ka xariiqeen in go'aansitaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland uu yahay mid muqadas ah isla markaasina ay difaacayaan waqti kasta oo ay ku qaadato. waxay sheegayaan shacabkani waa hooyooyinkii dhalayr ciidamadii la laayay ee ku dhintay dagaalka waa kuwii jasiiro lagu xasuuqay hooyooyinkood waa kuwii ufal lagu laayay hooyooyinkood waa ubadkay ka tageen lama rabo in la yidhaahdo farmaajo ay ma doonan Somaliland waa dagaal baa laga xigayaa baaradii golaha deegaanka shacabkii dhalinyaradii waxgaradkiiba qof kastoo maanta oo dhalinyaro ah ama dumarka iyo haweenkuba waxay u taagan inay shucuurtooda muujiyaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland farmaajo Soomaaliland hal qodob ku iman karaa wuxuu ku iman karaa Soomaaliland isagoo ictiraafa runtii aad iyo aad baan soo dhaweynayaa go'aankii madaxweynaha Soomaaliland Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay abina waxaan leeyahay abi horaad bilad u qaadatay wanaagsan dhowr bilood baad qaadatay Soomaaliland ha ku khasaarin taasaan ku raacsanahay oo ku taageersanahay xukuumaddeeda iyo madaxweynaheeda iyo baarlamaankeeda iyo guurteeda saas oo kuma raacsanin mar rabno farmaajo Soomaaliya waanu kala tagnay calanka gobonnimadu hoy weeye harac iyo qabo weeye hoy lagu nastaa weeye gumaysigu haraad weeye hanfi iyo dabeel weeye hobas iyo kuleel weeye aan harsanaynana hawriyad laguma helinahan haddaan nafta u huray annaguna ka hari mayno hayinka muuse hoggaanka u haye rageeniyo deldelan matadoo dayacan adhiidhiyo dhow ragee la baxay dhufayska intuu galay buu dhammaan rugsaday wakiiga caabiye haygu soo celcelin calankayga siin ragee cadowgay ahaa ciddaayihiinisay haygu soo celcelin farmaajo waa maalintiina walaayay dooni mayno farmaajo xuduudka waa soo geli maayo noo farmaajoanu leenahay farmaajoy soo geli maysid waxaan idin leeyahay maalin walba waxaynu moodaa inaynu ilowno wixiina soo maray laakiin farmaajo ayna xasuusiya farmaajo waa diiriye mar hadduu ina hargeysaan tegayaa wuxuuna dareensiiyey dhibaatadii uu inoo geystay marka ugu horeysa waxaan si mug iyo miisaan loo taageerayaa khudbadii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dareenka shacabka wax weyn ka bedeshay wax badan fahansiisay marka labaad maanta waxay ku beegan tahay 20kii February 1982 waxay ahayd maalintii la xasuuqay da'yarta iyo xoogga iyo barimageydada dadkeena Soomaaliland ugu soo duulay waxay ahayd maalintii hubka casriga ah iyo kaaraha iyo baybeega loo adeegsaday da'yarta sidee jir laga bilaabo ilaa 20 jir ayaa jeelada laga buuxiyay waxay ahayd maalintii ay maxkamadda markii la saarayay dhalinyaradii ay ku weerareen oo ku guuleysteen ilaahayna ku guuleeyay waana tamaanta Soomaaliland ay ku dhisantay halkankii maalinta ay bilaasay dhalinyaradu dhagaxii ugu horeysay tuurtay ilaa maanta wata Soomaaliland ku dhisan alxamdulillaah rabbil caalamiin midhadeedina waynu haynaa Allahu akbar Soomaaliland noolaato ninka la yiraahdo farmaajo waxa uu na xusuusinayaa boogihii naafadii guryaheennii dusanayo aynaan weli dhisan iyo wixii uu inoo geystay gumaysigii markaa jiray uu na xusuusinayaa markaasuu aayar iska leeyahay apologize baan bixinayaa Soomaaliland apologize uma baahna Soomaaliland waxay u baahan tahay in la xisaabtamo in runta laga sheego
in qof waliba wixii uu geystay lagu qaaday u baahan tahay laakiin apologize maynu qaadan mayno jaamac boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland aynaba